الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الأحبة في الله، بني آدم كرأس مال كيسو ودينتيس noloshiisa waxa asaas u ah diinta iyo caqiidada saxsan. hadduu diinta waayo oo diintiisa lumiyo wax u bedeli kara ma jiro. adduunyo dhan halladii la siiyo uma bedeli karto diintiisa, uma bedeli karto booskii diinta, uma geli karto, mana buuxin karto. diintaada waxyaalaha fasaadiya oo u baahan inaad ka ilaashato waxaa ka mid oo nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam dadaalka xad-dhaafka ah ee adduunyada iyo sharafkeeda iyo jagooyinkeeda iyo xoolaheeda aad ku dadaalayso. dadaalka aan xadka lahayn iyo damaca aan xadka lahayn diintaadu halis ku yahay. raasamaalkaaguu burburinayaa, aakhiradaaduu khatar gelinaya. nebigeennu sal alla alayh wasalam wuxuu tilmaamay laba yey ah oo adhi lagu sii daayoo lagu diray oo weliba gaajaysan. laba yey ah oo gaajaysan oo adhi lagu sii daayoo lagu fasaxay. fasaad intee leeg bay u geysan karaan adhigaasi. xayawaanaadka duurka jooga ee wax cuna ee duurjoogtii way kala duwan yihiin. yeydu waa waxyaalaha ugu khatarsan. wixii lagu sii daayo waxay leefto, waxay disho, waxay dhaawacdo, waxay ka takhallusto bay ka dhigtaa, gaar ahaan markay gaajaysantahay. yey gaajaysan oo adhi lagu sii daayey say u fasaadiso waxaa la mid ah ruuxa dadaalka siyaadada ee uu adduunyada iyo sharafka iyo kuraasida iyo jagooyinka uu ku dadaalayo ayaa waxay u fasaadiyaan ruuxa diintiisa. diintaadoo fasaadana waa adigoo kuu dhammaatay. say kuu fasaadinaysaa, say diintaada u fasaadinaysaa. li'anna ruuxu dadaalka adduunyada markuu xad ka dhaafiyo oo hadafkiisii ujeeddadiisu ay noqoto xoolo gaadh ama ma ahee madax noqo kursi gaadh, jidku u marayana uusan dan ka gelin iyo siduu ku gaadhayo, heer wuxuu gaadhayaa marka dambe adduunyadaasi ay addoonsato qalbigiisa oo uu noqdo addoon kursigaa u nool, oo jagadaa u nool, oo boqortooyada u nool, oo wasiirnimada u nool, oo xoolahaa u nool, oo aan ujeeddo kale lahayn. iyadaasuu u dhiman, iyadaasuu u nool yahay, iyadaasuu wax ku dilaa, iyadaasuu kula saaxiibaa, iyadaasuu kula colloobaa, iyadaasaa mabda' u ah oo u nool yahay. heerkaa hadday gaadho marka ilaah bay kuu noqotay. hadda nebigu sheegay sal alla alayh wasalam taxisa cabdu diinaari wadirham. diinaarka iyo dirhamku dad bay addoonsadeen, maryuhu dad bay addoonsadeen, jagadu dad bay addoonsatay, xoolaha iyo dhaqaaluhu dad bay addoonsadeen. hadduu ku addoonsadana ood addoon u noqotona khalaas, maxaa kuu laaban? maaddadaa aan qiimaha lahay baad addoon u noqotay. marka waxa weeye sharafka oo laga wado jagada iyo jaaha iyo xoolaha dadaalka siyaadada ee lagu bixinayaayo ruuxa waxay baabi'inaysaa, fasaadinaysaa, diintiisay fasaadinaysaa buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. sida yeydaasi gaajaysan adhiga ay u fasaadisoo kale. waxay u baahan tahay marka waa wax naftu jeceshahay, waa wax laynagu imtixaanay oo layna jeclaysiiyey, waa wax laynoo qurxiyey. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وشيء لينو قرحي ولينا تشعليسيي
لكن الله تبارك وتعالى أقول تلقال إن لينقو امتحانه waxay u baahan tahay marka si taxadar leh oo dadaal leh oo is ilaalin leh inaad u talabto wixii Ilaahay ku qoray naftaado is ilaalinayso diintaado ilaashanayso xuduudii Rabbiyood ilaalinayso inaad ku raadiso hadii kale waxay noqonaysaa in aad khasaarto khasaara aan ka soo kabasho lahayn Hakim ibn Hizam baa wuxuu leeyahay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayaan weydiistay waxisiibaan idhi uu isiiyay haddana mar labaad baan weydiisto uu isiiyay haddana mar saddexaad baan weydiisto uu isiiyay markaas Nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam Hakiimow xoolahani waana cagaaran yihiin waana macaan yihiin yani ishuna way jeceshahay oo waa shay cagaaran oo midab cagaaran oo isha jecel وانا معايه وددنكoodu waa macaayahay labada shaygu markuu kulansado qurux iyo macaan la iska ma karo xooluhu waa cagaar waana macaayihiin ruuxii ku qaatabu nabi sallallahu alayhi wasallam naf is ilaalinaysa isagoo naftiisa ilaalinaya oo xumaanta iska ilaalinaya oo xaraanta iska ilaalinaya oo taxadaraya ruuxii sida ku helo ku qaata waa loo barakayn buu nabigu sallallahu alayhi wasallam wixii uu helo ruuxiisa ku qaata naf hanqaltaageed xadgudubkeed iimaan la'aan xirsi iyo dadaal siyaada damac nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam loo barakayn maayo markaas wuxuu noqonayaa ruux sidii ruux wax cunahayo dhergeynin oo kale waad cuni laakiin calooshaadu ma soo celinayso mana dhergeyso mana ku deeqayo adduunyada saasay kugu noqon waata nabigeenu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam xadiid kale ibni aadam kanaad arkaysaan hadii tog dahab la siiyo mid saddexaad labaad buu raadin lahaa mid labaad hadii lagu darana mid saddexaad buu raadin lahaa adduunyada dhan hadii la gacanta loo geliyana wax ka badan buu sii raadin lahaa ma dhergayo oo joofkiisa gudihiisa ma buuxinayo waxaan carrada ahayn wax dharjin jira ma jiro adduunka waa idinka arkay kuwa ugu milyaneersan oo hantida ugu far badan adduunka maanta haysta kuraasta iyo jagooyinka ugu xoog badanna ku fadhiya damac kala ku jira haddii kuwa kale loogu dari lahaana way rabi lahaayeen dadaalkeeday ku jiraan ma deeqayso wa sadaqa rasuulullaahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ma dhergeysid waxaan laga dhergeynin oodan la soo afwareegi karin oodan ka salgaari karaynin waqtiga haysaga luminin wax kaaga qiimo badanna ha ku luminin diintaada ha ku luminin aakhiradaada ha ku luminin kulanka rabbi aad la kulmayso iyo hor istaagiisana ha ku luminin wax kaaga qaalisan iyo raasamaalkaaga diineed ha ku lumin damacu meel ku dhamaado male قرآن كريم كان رب تبارك وتعالى صورة وحنوسية مثال عجيبة في سورة الصاد نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أو محراب كيسي سجع عبادة الزنية أيا لوانين أيا وحي صوفو للمحراب محراب ميل كرو ميل يرس الرئيسي كو عبادة سنشرين سكذا والله ما فلان baa laba nin baa meeshii soo fuulay oo nabiga iska cibaadeysanaya meeshii ugu yimid waa argagaxay war maxay ahayd balaayada ku soo dhacday markaas waxay yiraahdeen waxba argagaxine laba nin oo is haystaan u nahay waxbaan isku haysanaa na kala saar xaqna u kala saar xadkana ha dhaafin xuquuqda muxuu ahay xaka fogaanin xaqa waan is haysanaa na kala saar ma isku haysataan wuxuu ku qasbanaaday nabiga inuu dhageysto dacwadoodii ninkii wax sheeganaya baa hadlo wuxuu yidhi ninka walaalkay ah ee wada soconno wuxuu leeyahay 99 sabeenood buu leeyahay 99 neef oo ida ah ayuu leeyahay aniguna hal sabeen abaan leeyahay iigu jirta halkaygii sabeenta ahaa buu igu haystaa
oo uu leeyahay kuwayga iigu soo dar waana iga reeyayoo waa iga fasaaxo batayoo waa iga aftahansanaadayoo hadalkiiyo doodiina waa iiga qaalib noqdo waa iiga adkaaday marka nakala saar 99 sabeenood gadaal buu marsaday hal sabeenoo ninkan uu leeyahay buu dhinaca ku dhagan yahay oo leeyahay waan kula leeyahay igu soo wareeji ayuu tamacil hada ibn aadan wakaa war 99 baad haysataaye sabeentan maxaa ka galay halkan walaalka leeyahay halka xabbo maxaad u daba socotaa ma dhargeeyo waa milyaneer wuxuu jeclaan lahaa miisaska waxoogaaga yarkeed ku haysataan inaad ku wareejisaan waana milyaneer damciisu ma dhamaado ibn aadan wakaa wax soo celinaya ma jiro ka kursiga ku fadhiya ka milyaneerka hantida haysta ka awoodda haysta mid walba wuxuu jeclaan lahaa intuu haysta in ka siyaasan inuu sii helo asagoo saa u daba ordayuuna ku tagayaa oo diintiisii gaday oo sharafkiisii gaday oo aakhiradiisii gaday oo waxba ilaahay agtiisa u wali sidaasuu adduunka ku dhaafayaa allah tabaaraka wa tacaala naasixa ee xakiimka ah ee adoomadiisa yaqaana ee ina abuurtay ee dabeecadeenna yaqaana ee waxaan ka abuuranahay garanaya ee waxa aynu haminayna iyo waxayna fasaadinaya garanaya allahaas tabaaraka wa tacaala inoo naseexeeyo ina yidhi war adduunyo ka sal gaari maysaane tartiibsada waxay gaadhaysaa marka dambe tii uu raadinayay inay cadaab ku noqoto aakhira kaliya ma aha allah quraanka kariimka waa ka inoogu sheegay markii munaafiqiinta ilaahay ka hadlay falaa tu'jibka amwaaluhum wala awlaaduhum xoolahoodii carruurtoodu yaysan ku cajabinin waxba ha u bogin إنما يريد الله ليعذبهم بها ألا وحو دونيا إنو كعذاب حولها يعرورتني إنو كعذابه في الحياة الدنيا الدنيا النور شيطة انت الدنيا تشوغان بعرورتودي حوله عذاب لوغا دغي كدب لا وتزهق أنفسهم وهم كافرون دغنا إن نفتو كبخد ايغو غالا ودين تودي ضيعي ودين تودي لميي وان إلهي تسحوول hadday gaalnimo ku dhintaanna maxaa u yaala khalaas wala garanaya meesha u dambaysa waxa keenay dadka xirsiga iyo dadaalka adduunyada ee ay diintoodii dhaafsadeen ay ku gateen dadaalka adduunyadu ama barashadii diinta ee waajibka kugu ahayd buu ku garamarinayaa oo ka mashquulinaya ama ma ahe dhaqankii waajibkee diineed buu ku garab marinayaa oo wixii lagaaga bana waajibaadkii baad ku dayacaysaa ama ma ahe xaaraantii laga reebay baad ku gelinaysaa oo ku gelaysaa sababteeda intaasibana waa khasaaraha la tilmaamayo uu nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam in uu ruuxu diintiisii uu luminayo raasamaalkii baa lumay sidaas daraadeed waxaa loo baahan yahay adduunyadan ilaahay baa inagu abuuray allah ina keenay damaceedii doonitaankeedii shahwadeedana ina geliyay haddana dhanka kale waxa laynoo soo dejiyay sharciyo nabi baa laynoo soo dirayo waxa layna yidhi is-ilaaliya qaabka wax u raadsada u kasbada u dalba jidka mara jidka iska ilaaliya sida u taxadara haddaad marka aad aadaabtii iyo nidaamkii iyo axkaamtii lagu xidhay intaad ka tilaabsato damaca iyo hungurigu ku qaado oo daba orada hawada adduunyada marka way marka laga digayo lagu leeyahay raasamaalkaagii baad lumisay wixii rasmiga ah baad lumisay waxaan macno weyn lahayn baad markaasi aad noloshaadii iyo adduunyo iyo aakhiraba aad ku lumisay halista laga digayta iyo daaway damacaaga marka control ما قنعين كرت أدية كما قنعين كرت كلية وحكوا قنعين كرا قناع سنان نبي صلى الله عليه وسلم غني لماذا تاجر لماذا معها هنتي بدن كراس معها مقع معها حولات بدن معها وإن إلهي قلبي أوجل قناع سنان نبي صلى الله عليه وسلم سيدو كلواك أولانيا الدون كاني وحي إلهي تبارك وتعالى إذن كنت لك علي ووح قرن
وحوري لو قري ما دام وحي قري هي ضرب كيسي راتسي كيسنا ولا قربات فريسة معها راتسو لكن محل قربا وحال قربا طريقي إلهي كراتسو ويلي كراتسو طريقة كالتنا اسكتشرو وهلاك جاي آفوي طريقة كله حميد كان كدونه وحي إلهي كو قري وادهلي وحسن كو قرين السنة بأهلي ميسد معنى هذا وحويان حلاشة كو قابسو حاران تنكفقو صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين